masjidka magaalada Bergen oo ah caasimadda labaad ee dalka Norway ayaa galabnimadii shalay waxaa isku gadaamay ciidamo boolis ah oo ku hubeysan hubka noocyadooda kala duwan sidoo kalena waxaa hareeraha joogay gaadiidka ambalaasta oo loogu talagalay haddii ay xaalad degdeg ah dhacdo arrintan ayaa timid kadib markii booliiska lagu wargeliyay haweeney 30 jir ah oo masaajidka ku jirtay taa oo looga shakiyay arrimo kala duwan booliiska oo durbadiiba yimid ayaa isku dayay haweeneyda inay ka soo saaraan masjidka ha yeeshee waa ay ka diiday waa ayna u hanjabtay waxa ayna ku hanjabtay in ay adeegsan doonto mindi oo ay la dhici doonto booliiska qudhiisa taliyaha howlgallada booliiska Fjord Kolveit ayaa sheegay in ay dhacdadan la kulmeen kadibna markii haweeneyda ay hanjabaada la timid ay dalbadeen gurbad taas oo keentay in ay gudaha u galaan masjidka haweeneydana laga soo qabto haweeneydaasi 30 jirka ayaa la sheegay inaysan wax diiwaana ku lahayn masjidka waxayna booliisku sheegeen in ay geyn doonaan goobaha caafimaadka si loo baaro caafimaadkeeda si taalamidana ay u gudbi doonaan xabsiga haddaba haddaynu nahay bahda Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaan arrintan wax ka weydiinay mas'uulka ugu sarreeya masjidka magaalada Bergen Professor Ibrahim Aadan Ahmed haddaba professor sidee wax u dhaceen dhacdada aad aragtay oo sidaad u aragtay kolley wax badan oo ka naqaano qofta maaragtay dumarka ah oo ay booliiska masaajidka ka qabteen malahan ay taqaanana malahan waa qof masaajidka ku cusub marka hase ahaatee qof maamulku nagula jiro oo isdiiraha nagula jiro oo dumar ah oo qaybta dumarka ay ku kulmeen wax dhexmareen ayaa booliiska ku dacweyday booliiska markii ay yimaadeen oo kula taliyeen inay meesha ka soo baxdana ayay u hanjabtay sidaa daraadeed booliisku waxay ku qasbanaadeen inay gurmad dheeri ah dalbadaan marka gurmadkii dheeriga ahaa iyo hubaysnaa iyo ambulaansi iyo wixii oo dhan iskugu yimid meesha hadday wax dhacaan amal si heegan maaragtay loo diyaargaroobo annagana mar dambaan nimid marka kolley isku soo duub qof masaajidka ku cusub ayuu ahaa oo loogu shakiyay in xaalad khatar ah uu sababi karo sidaasaa booliiska loo wacay kadibna alxamdulilah waxaa lagu guulaystay in lasoo qabto iyadoosan waxba dhicin ilaahay waa mahad iskale marka qof masaajidka xubinta ah ama qof fadli loo aqaanayna maaha masaajidka wuxuu ilaaha ku leeyahayna maaha masaajidkana dee wuxuu ilaalinaya maslaxada guud iyo amniga guud iyo nabadgelyada in maaragtay ay sugnaato sidaasna booliisku u wacay maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa maanta oo Isniina u fasaxday madaxweyne Donald Trump inuu tarxiili karo soo galootiga ka soo jeedo dalka Venezuela taasoo uu horay u codsaday in uu u adeegsado sharciga xaaladaha dagaalka waxa uuna sharcigani soo baxay sanadka markuu ahaa 1798 xeerkan ayaa dhigaya in madaxweynaha uu awood u leeyahay in uu dabagalo oo uu soo qabto misana dalka ka tarxiilo dhammaan ajaanibta uu doono xeerkan oo soo baxay 1798 ayaa la adeegsaday 2 jeer oo kaliya markii koowaadna waxa uu ahaa dagaalkii koowaad adduunka waxaana xigtay markii labaad oo la adeegsaday oo ahayd 1812 dagaalkii dhacay 2015 ayaa noqon doonta markii saddexaad oo la adeegsan doono sharcigan waxa uuna madaxweyne Donald Trump hore u soo jeediyay in uu ka tarxiilo dalka guud ahaan dadka ka soo jeeda reer Venezuela kuwa oo uu ku sheegay kooxda maafiyada ee ka dhisan dalka Mareykanka ee ka soo jeeda Venezuela inay yihiin ciidan cadow ah oo ku soo duulay dalkiisa oo ay adeegsanayso dowladda Venezuela taa oo keenaysa in uu soo qabto oo uu dalka ka tarxiilo awoodna u adeegsado guud ahaan reer Venezuela wixii kaga nool dalka Mareykanka sharcigan oo ay maanta maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ansixisay ayaa waxaa cod u qaaday garsoorka 9 xubnood ka kooban ee maxkamadani fadhiyo 5 kamid ah ayaa u codeysay in uu Donald Trump awood buuxda u leeyahay oo uu isticmaali karo xeerkan la dhaqan geliyay 1798 waxa uuna Trump hadda bilaabi doonaa tarxiil iyo xaalad dagaal oo qasab ah oo aan looga daba hadli karin in ka badan 1 milyan iyo bar Norweji ah oo qaba xasaasiyadda ama allergiga sababa ubaxyada iyo geedaha kala duwan ayaa looga digayaa in la gaaray xilligii ay xasaasiyadda iyo sidoo kaleba allergiga neefta ay soo bixi lahaayeen maadaama la gaaray xilligii ay soo bixi lahaayeen geedaha kala duwan iyo ubaxyada kala duwan ee sababa xasaasiyaddan
ururka magaciisa loo soo gaabiyo naaf oo ah ururka xasaasiyadda iyo neefmareennada dalka Norway, khabiir u hadlay oo lagu magacaabo Halvard Romsfjord ayaa sheegay in geedaha biyurt ay si xawli ah xilligan uga soo baxayaan bariga iyo koonfurta dalka Norway. Waxa uuna intaa ku daray in digniinaha iyo fariimaha ku saabsan xasaasiyaddan iyo ka hortaggeedaba ay bilaabi doonaan baahintooda laga bilaabo bilowga isbuuca inagu soo fool leh. khabiirkan ayaa sheegay in ay ka digayaan ayna ugu baaqayaan dadka qaba xasaasiyadda noocyada geedaha iyo ubaxa inay bilaabaan isticmaalka daawooyinkooda maadaama daawooyinka ay leeyihiin ka hortagga. dad badan oo dunida daafaheeda ku dhaqan ayaa qaba xasaasiyadda nooca ay sababto geedaha iyo ubaxyada kala duwan. halka ay wararka ugu doorkaroon maanta idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdulaahi Shiine.